بسم الله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه وسلم تسليما كثيرا وبعد waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo cashir yar oo kooban oo aan kaga hadlaayo macnaha kelmadda maqaal ama qormo inta nooc loo qaybiyo qormada ama se maqaalka procedureska ama tallaabooyinka la raaco si loo qoro maqaal iyo weliba qolfoofka ama skeletonka ay ka kooban tahay maqaalku aan ku horeeyo macnaha ay leedahay maqaal كلمة مقال عربي أهان وحل هو يرادا هي قطعة نثرية وقبل كم إذا هذلك ذات طول معتدل وصاحب درر دحدحات تدور حول فكرة عامة هو ريجيسة هذه جارالة فكرة جود تناقش موضوعا معينا كديسكاس كريسة بدنا موضوع معين هدف كمقال كونه وحواي هي إقناع القراء لتخبر فكرة ما in la qanciyo lagu qanciyo akhristayaasha inay aqbalaan fikrad English ahaan waxa weeye waa macna aan macnaha ka duwanayn bay leedahay the article is a prose piece of medium length sidoo kale waa hadal qaybta hadal ka mid ah waa qayb hadalka ka mid ah leh length medium dhexdhexaad ah revolving around one general idea ku wareegaysata hal fikrad guud kana discuss karaysa a particular topic barbaska ama ujeedada loo qoro maqaalna waxa weeye to convince readers to accept an idea si u aqbalaan in lagu qanciyo akhristayaasha inay aqbalaan idea marka guud ahaan maqaal waa qayb hadalka kiisa caadiga ka mid ah ku wareegaysata hal fikrad u saaxiib ah dherer dhexdhexaad ah cabirta hal fikrad idan waxaan gelaynaa qormada noocyadeeda kala duwan sideedaba laba nooc oo standard oo caalami ayaa jira oo qormada loo kala saaro almaqaala daatiya iyo almaqaala cilmiya ama self article ama scientific article waxa loo yaqaano maqaal shakhsiya ama maqaal cilmiya haddaba difference u dhaxeeya labadaas waxa weeye inagu markaan ka hadlayno almaqaala daatiya laba ayay Soomaali ahaan u kala saarsanaa almaqaala daatiya maqaalada shakhsiga ah waxay noqon kartaa mid qofka mataqaanaa kaatibka ka imaanaysa oo ku dhacday isaga dhacdo u goobjoog u ahaa isagu ama qof kale ku dhacday ama bulshada ka dhex dhacday iyo mid mala awaal ah oo qofka kaatibka ama qoraagu isagu creativity-geeda ama hal abuurkeeda leeyahay soo macnaha ugu tusaalayo bulshada ama dadka akhristayaasha uu la hadlaayo qaab wacyigelin ah ama tusaaleyn hadba suu marka point of view ka hadlaayo qoraagu badanaana waxa weeye waxa lagu qoraa maqaalkaas waa inuu ku qoraadaa biisluubin jaddaab macnaha qaab soo jiidasho leh hadalladana hadallada la isticmaalayo waa inay ahaadaani hadallo aan suuqiga ahayn af suuqiga ahayn waa inay ahaadaan hadallo bulshada reerku ah badana aad loo si yar loo isticmaalo marka maqaala cilmiya laakiin si way ka duwan tahay maqaala daatiya almaqaala cilmiya gabi ahaanteedba kama turjunto shakhsiyadda ama rabitaanka qofka kaatibka ah bale waxay ku salaysan tahay dalaa'il sharciya ama waxyaalo scientifically approved ah ama se tajaarib macquul oo la tijaabiyey marka intaas isugu jirtaa hadii jaraale maqaala cilmiya waxay ku qoran tahay luqad waadix oo la fahmi karo bulshada dhan ma fahmi karto intaasaan ugu gudbayaan noocyada ama qaybaha maqaalka waxaa jirta tallaabooyin loo maro si loo qoro maqaal okay qaybta koowaad waxa weeye waa in first point procedure كواد أما first step is select the topic واحد دورانيسا وإناد موضوع دورتا اختيار الموضوع و first point طلباتنا وحوية تحديد الأفكار الموضوعية أما identify your idea وإنا حددت فكرة هذا موضوعي كهليس موضوع
waa inuu waxa ahaadaa mid scopekiisu aada u kooban yahay. Meesha ka hadlayso waa meel la yaqaano inay tahay goob mucayana la yaqaano ama position mucayana waa inay tahay. stepka saddexaadna waxa weeye albaxth, waa inaad wax raadisaa topiga aad dooratay oo aad xadiday meesha kaga hadlayso, waa inaad raadisaa information dheeraad oo ku saabsan qormada ama maqaalka ama mawduuca aad dooratay waxyaalaha ku saabsan. tan afraad waa kitaabatul maqaal. markii aad mawduuci dooratay oo aad xadiday oo aad raadisay information badan raadisay, marka waa inaad qortaa maqaalka. marka way noo imaanaysaa slide-ka ku xigaya inuu ku imaanaysaa qaabka loo qoray maqaalka qalfoofka ama habdhismeedka maqaalka. next slide baan ku arkaynaa, laakiin se procedure-ka afraad weeye, waa inaad qortaa maqaalka. kabacdi markaa maqaalka qortay waa inaad samaysaa wax la yihahdo read, revise and repeat. macnaha waa inaad akridaa, dulmar ku samaysaa, la fagurtaa, kabacdina ku celcelisaa. almuraajacatu watadqiiq wax la yihahdo. markii aad dhamayso iska hubiso, iska jeegin garayso, khaladaadkii oo dhanna aad ka saartid, waxa weeye waa inaad publication ku samaysaa, waa inaad shaacisaa ama share garaysaa. intaasaan kusoo koobaynaa qaybaha mataqaan tallaabooyinka loo marayo markii la qorayo maqaal. habdhismeedka ama qaab dhismeedka skeletonka ee qormadu yeelanayso waxa weye kow waa inay yeelataa mawduuca. mawduucu waa meesha koowaad ee akhristayaasha dadka wax akhrisanaya arkayaan ee kana miisaamayaan qormadaadu noocay weertaa. markii aad mawduuci kow aad qortid, waa inaad qortaa wax la yihahdo introduction ama muqadima, hordhac, oo uga hadlayso mawduucaaga wuxuu ku saabsan yahay, mawduucaaga oo qeexaysa iyo waxa aad ka hadli doonto oo hordhaca kooban. waxaa kusoo xiga baadhigi ama meesha in ubuucda u naqaano, meesha ugu muhiimsan weeye carabi ahaan alcard aw sulbi baa la yihahda. waa meesha qoraagu uu ku faahfaahinayo eydiyadiisa, waxyaalahu dareensan yahay mataqaanaa iyagoo bitafsiil ah, tafaasiishii, qaybihii, anwaacdii ilaaha hore. marka waa meesha aada u muhiimsan oo la rabo in waxyaalahaaga oo faahfaahsan aad kaga hadashid, meesha la yihahdo baadhiga ama ubuucda. waxaa ugu dambaysa meesha la yihahdo conclusion alkhaatima, ama meesha u naqaano gabagabada iyo gunaanadka qormada. waxaa kaga hadlaysaa, waxaa isku dayaysaa inaad gebi ahaanba soo koobtid dhammaan wixii aad ka hadashay oo aad kaga hadashay qormadaada, approximately 4 ama 5 mataqaanaa lines inaad kaga hadashid aad u qeexdid oo aad mataqaanaa kusoo gebagabaysid qormadaada. waxaan rajaynaya inaad videoga kan ka bogateen. waxaan inkula dardaarmayaa in aad subscribe yahdaani. intaas ayaan kusoo koobi doonaa. waxaa inoo ballana فيديوهات كان عن صور إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.